السلام عليكم وبرنامج كان نغبرتين جمعة كستا سودينو برنامج كاسو لايف وهذيك سودينو سومالي ميديا تي في بروديوسر كن وياهي مدن زكريا حاجي زكريا ام حايو وحاجي برنامج جمعة كستا waxaan ku keenaa shaqooyinka banaan iyo fursadaha kale oo sida maaragtay xirfad gabaryahay sidaydaba kama hela saqlayntiyo inaan socodka badiso saqdaa dhexe habeenkii hadba suuriin istaagtee gabaryahay sidaydaba kama hela saqlayntiyo inaan السلام عليكم مرلبات كرر لي هذا حق فرصمدا ayaa maanta xogaa aan yar fiicnayn ku soo dhawaada barnaamijkii jimcaha barnaamijka jimcaha oo maanta oo kala ah 5 galabnimo waxaan idin keenaa asagoo live ah barnaamijkaas wuxuu ku saabsan yahay inta badan shaqooyinka banaan si aad shaqooyinka u heshaan iyo xirfado free ah oo aan maalin kasta soo ugaarsano si aan idinku soo gudbino inta badan shaqooyinkaas iyo xirfadahaas waxa noo soo gudbiya Emerge Community Development iyo City of Minneapolis oo isku meel degan sida Riverside Opportunity Center laakiin xirfadahaas community-ga dhanba iska leh midda ugu horeysa maanta intaan barnaamijka dhex gelin waxaan rabaa inaan anoo ku hadlayo magaciina community-ga Soomaaliyeed inaan tacsi u diro dhammaan shacabkii Soomaaliyeed ee ku geeriyooday qaraxii aan naxariista lahayn qaraxii naxariis darrada ahaa ee ay ku dhinteen 350 qof oo ay ku jiraan walaalo hooyooyin aabayaal culumo ganacsato siyaasiin ay nooc shacab caadi ah oo raadinaya intooda badan inay nolol maalmeedkooda ugu soo adeegaan ilmahooda ayaa lagu gumaaday magaalada Muqdisho waa dhibkii ugu weynaa ee qaraxyada loo geysto Soomaaliya kii ugu weynaa kii ka horeeyay oo kan wax yar ka yaraa laakiin sidoo kale aad looga xumaaday oo dad badan oo arday ah iyo macallimiin iyo culimo iyo siyaasiyiin dilay wuxuu ahaa qaraxii Shaamow waxaan filayaa inuu ahaa 2011 waxaan rajaynaynaa in Ilaahay Soomaaliya ka qabto kuwa qaraxyada la beegsada maalin walba dadka siyaasiyiin ma ciidan maahan dad dagaal ku jireen maahan waa dad masaakiin waa dad shacab ah marka Ilaahay waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid dhamaata waan u soo noqon doonaa barnaamijkaas laakiin barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay shaqooyin iyo xirfado barito oo sabti ah hadii aad rabto in aad u shaqeysto state of Minnesota shaqooyinkiisu waa shaqooyin aad iyo aad tayo u leh shaqo waxa la fiirshaa lama fiirsho inta ay bixiso kaliya waxa la fiiriyaa mustaqbalkeeda waxa la fiiriyaa gunooyinka shaqadu leedahay ibn aadanku dhan waxay ku weydiinayaan marka shaqo u sheegtid war shaqadan ma temporary ba mise waa full time maxay gunooyin leedahay gunooyinka maxaa la dhahaa gunooyinka waxa la dhahaa kaarka caafimaad kaarka ilkaha kan indhaha fasaxyada lacagta ku koreyso meel ku dhigmaysa imisa lagu daraya wixii laga jiro markaad 10 sano u shaqeyso maxaa xaquuq leedahay markaad retire garowdo aad sabto Soomaaliya ama Ethiopia ama Kenya ku noolaato maxaa lacag bishi aad qaadanaysaa ma 5,000 baad bishi qaadanaysaa ma 6,000 baad qaadanaysaa waxa la fiirshaa mustaqbalka shaqadu bataa shaqo aan wax ka baranayo xirfado ka baranayo haddaba yaantu hore waxaan soo gudbinay shaqooyin state-ka dad badan ayaa yimid waa ku maadsantihiin inaad ka faa'iideysateen haddana shaqadan waa shaqo khaas ah waa dadka darawalada ah ama traagyada wada waa shaqo weligiin maaragtay qof Soomaaliya wada ama Oromo oo wada traagga magaalada traagga waa weyn oo hadda xilliga bilaabmaya barafka naga aruuriya badan waxaad aragtaan waa dad cadaan ah macnaheedu ma ahan inaadan wadi karin waa lagu tababarayaa waxa lagu barayaa qalab badan kuwa geedaha lagu jaro waxa lagu barayaa kuwa wadooyinka lagu nadiifiyo waxa lagu barayaa cagafyada waaweyn yani waa shaqo aad ku bilaabayso 30 ilaa 40 kun sanadii oo intaas oo gunnaa leh gunnooyinku waa idin sheegi doonaa waxay dhacaysaa barito
oo sabti ah waxay dhacaysaa berito oo sabti ah waxay ka dhacaysaa open house baa jira berito oo sidii loo apply gareynayay shaqooyinkii la keenayo waxay ka dhacaysaa Cedar Avenue Track Station. Cedar Avenue Track Station waa maxay adresku waa 1900 East 66th Street, Richfield, Minnesota. haddaad Facebook ku jirto Cabdirasaaq Bihi waad ka helaysaa. waa shaqada magaceeda waxaa la dhahaa Transportation Associate. baabuurtaas barafka nadiifiya kuwa halkaa kaga muuqda kuwa qashanka jara kuwa maaragtay cagafyada waxaasoo xirfadaha baa laydin barayaa waana laydin baygareynaya waana shaqo dowladeed oo permanent ah. fadlan ka faa'iidayso berito weliba anigu waxaan oran lahaa dadka traagyada wada oo dhibsaday inay maalin walba ka maqan yihiin ilmahooda oo ay ku maqan yihiin safar ay u shaqaynayaan sida Mexico, Canada ama Kentucky oo bil laba bilood shaqo ku maqnaada haddii ay rabaan inay shaqadoodii xirfadda u leeyihiin ay halkan ka helaan ka bacdina ay reerkooda la joogaan. shaqooyinkan waa shaqooyin magaalada dhexdeeda waa state-ka dhexdiisa soo habeenkii gurigaaga soo hoyanaysaa soo ka faa'iideysta waxa weeye again waxay ka dhacaysaa Cedar Avenue 1900 East 66th Street bay ka dhacaysaa waa Richfield, Minnesota. taas waa berito saacaddu waa 11 subaxnimo ilaa 2 duhurnimo 11 subaxnimo ama 5 saac subaxnimo ilaa 2 duhurnimo haddii ay 11 bilaamayso haddaan anigu adiga ahay 10:30 meesha waa joogi lahaa waayo ma qancidda imaanaysa. midda labaad shaqadan waxay leedahay gunooyin aad fara badan waxaa ka mid ah union baad ku jirtaa union ku difaacaya oo xuquuqdaada ilaalinaya baad ku jirtaa macnaheedu waxa weeye shaqadaas waa shaqo guaranteed ah. midda labaad benefitka ay leedahay waxaa ka mid ah vacation waxa weeye every two weeks 4 saac meel ku dhigmayso every 2 weeks 4 saac meel ku dhigmayso macnaheedu waxa weeye vacationkeedu waa badan yahay fasaxeedu holidayska aan dawladdu shaqayn waa 11 waa 10 ama 11 sanadii oo aan dawladdu shaqayn waa paid waa lagu baygareynaya adoo gurigaaga jooga fasax baana tahay. waxaa ka mid ah insurance-ga ay qabto waxaa jira kan xataa life-ka ah haddaadan galayn waa adiga khasab ma ahan waxaa jira caruurtaada mid lagu kaafalgareynayo khasab ma ahan xaaskaaga ama odagaaga mid lagu kaafalgareynayo khasab ma ahan waxaa jira haddii ay wax ku gaaraan short term ah oo 6 bilood jugtada ka soo kabanaysa ama xanuunkaas 6 bilood jeegagaad qaadanaysa. haddii kale waxaa kaloo jira long term waxaa jira haddii nabar kugu dhaco oo aad ka soo waaqsanayn oo nabarkaas dhaawacaas aad u shaqayn karin shaqada u qaban karin life baad u qaadanaysaa lacagtaada. waxaas waa insurance ku jira meesha waxaa ka mid ah kii ilkaha kii caafimaadka guud wax kasta oo dawladdu qabto bay qabaan marka benefitka shaqada u fiiriya. tan labaad waxaa kaloo jira shaqooyin job fairkaas wuxuu ka dhacayaa emerge xarunteeda nooradka ku taala shaqooyinkaas waxaa imaanaya FedEx waa qodobka deliveryga ama mail ka sameeya oo gudaha iyo barnaamijka laga shaqeynayo FedEx baa ku jira waxaa ka mid ah Anderson Windows waxaa lagu barayaa waa shaqeynaysaa laakiin waxaad ka baranaysaa sida loo sameeyo darshadaha guryaha la geliyo iyo albaabada. waxaa kaloo imaanaya qolal yiraahdo Express Employment Professionals oo dad professional shaqaalaha raadinaya. waxaa kaloo imaanaya Rem Minnesota waxaa kaloo imaanaya Amazon waxaa kaloo imaanaya biitsada la yiraahdo Domino's oo shaqaale raadinaysa. intaas waxaa kaloo ka mid ah kuwa nadiifiya air duct waa xirfad weyn guryaha hoosaska ah meesha airku maro dadka nadiifiya lacag badan bay ku shaqeeyaan. KMS company la yiraahdo oo sameeya air duct cleaning baa imaanaya company-gaasna waxay raadinayaan dad ay tababartaan oo ay shaqooyinka siiyaan. xagee bay ka dhacaysaa waxay ka dhacaysaa emerge xafiiskeeda waqooyiga oo la yiraahdo oo address-ku yahay 1834 Emerson Avenue North 1834 Emerson Avenue North Minneapolis
411 goormay dhacaysaa waxay dhacaysaa khamiista oo ay bishu tahay 26 khamiista oo bishu tahay 26 saacadaha u dhaxeeya saacada u dhaxaysa 12 ilaa 2 12 ilaa 2 waa maalinka dadka la hayar gareynayo waa job fair laakiin waxa ka horeeya 25 oo 9:00 subaxnimo ilaa 5 haddaad tagto emerge oo ku taala waqooyiga waxaa laga caawinayaa resume in lagu sameeyo interviewga sida loo galo oo lagu najaxo in lagu baro waxaasoo dhan waad ka helaysaa haddaad degan tahay Cedar Riverside Opportunity Center waa daarta cusub tag ka qaada flyerka oo adresska ku yaalo inta la gaarin 25 bisha haddii aad u baahan tahay inaad wacdo xafiiska shaqooyinka bixinaya oo aad direction ugu baahan tahay telefonkoodu waa 612-529-9267 612-529-9267 taas waa job fair oo ay isugu imaanayaan intaas oo company waxayna dhacaysaa 26 bisha inta u dhaxaysa 12 ilaa 2 duhurnimo waa only 2 hours laakiin haddaad u baahan tahay resume iyo in lagu sii naashnaasho oo shaqadii lagu diyaariyo 25 maalinkaas ka horeeya 25 9:00 subaxnimo ilaa iyo 5 xafiiskaas aad tagaysaa emerge oo ku yaala Northka waxaana ka helaysaa in laga caawiyo resume-ga iyo waxa la wixii aad u baahan tahay haddaba maxaa kaloo jira kuwaas waxayaan shaqooyinkii sida aan hadda korna idin sheegay wali waxa bannaan 3 scholarship oo lagu barayo xirfadda dhismuhu wuxuu socdaa 5 bilood ama kaliya 20 asbuuc wuxuu socdaa waliba tan scholarshipkeedu classkiina waa ku free markaad half dhamaysana $1 baa lagu siinayaa markaad wada dhamaysana $1 kala leedahay oo scholarship kamid ah soo 2,000 waa lagu siinayaa xirfad for life ah oo adduunka meesha tagto kaga shaqaysanayso oo shahaado haysato oo 5 bilood kaliya lagu soo koobay ayaa lagu barayaa shaqadiina waa ku diyaar oo hay'adda la yiraahdo West Bank CDC oo Cedar ku taala ayaa guryaheeda waxay sameynaysaa dib u dhisayso 20 milyan gelinaysa waxay go'aansatay dadka xaafadda degan Cedar in ay tababarkaas siiso lacagta scholarship-kana siiso ka bacdina markay soo dhameystaan ay guryahooda ka shaqeeyaan ay dhisaan xaafadooda haddii la waayo dad Cedar degan way u furan tahay dadka kale oo apply gareeya marka qof kastaba waa apply gareyn karaa oo ama ana ila soo xiriiraysaa oo waxaad imaanaysaa emerge opportunity center meesha ku taalo oo daarta cusub baad imaanaysaa ana kugu xiraya qoladii ku siinaysay scholarship-ka waana sidii loo soo kala hormaro waxa kale oo jira wali waxa furan oo 3 bisha bilaamaya oo gabagaba ah application-kiisi dadka raba inay bartaan carpentry waa qayb dhismaha guryaha kamid ah sida alwaax loo cabiro loogu shaqeeyo loo jarjaro guryaha loogu dhiso carpentry way bannaan tahay waa xirfad aad iyo aad u qiimo badan waliba tan waxay soconaysaa 2 bilood October 30 bilaamaysa ka hor bay xirmaysaa haddii aad rabto la xiriir emerge Cedar Riverside or emerge North Minneapolis waxa kaloo jira arrimo quseeya early childhood yahdo oo quseeya qoysaska leh ilmaha ka yar 5 sano arintan waxay khusaysaa qoysaska leh ilmaha ka yar 5 sano ama hooyada uurka leh ama qoyska cusub oo hadda kadib isu diyaarinaya inay ilmo dhalaan waxay ku saabsan tahay early childhood education ilmaha waxa la ogaaday markay 5 sano ka yar yihiin haddii la geeyo preschool